salaamullaahi calaykum dhammaan muslimiinta waxay isku diyaarinayaan qaabkay u soo dhoweyn lahaayeen bisha barakaysan ee ramadaan. bisha soon waxa ay leedahay faa'iidooyin aad u waaweyn, waana fursad sanadkii hal mar soo marta dhammaan muslimiinta. diinteenna islaamka bisha soon aad iyo aad ayay u karaamaysay, waxa ayna geysay boos aad u weyn. bisha soon waa bil lagu tarabiyeeyo nafsadda loogana daahiriyo waxyaabaha xun. sidoo kale waa bil dulqaad, maxaa yeelay qofku inta uu sooman yahay waxa uu dareemayaa oon iyo gaajo. sidaas daraaddeed oonku wuxuu qofka ku abuurayaa dulqaad, oo wixii nafsadiisu jecleed oo dhan ayuu ka tegayaa, isaga oo aaminsan inuu ilaahay dartiis u sooman yahay, ajarna uu xisaabsanayo. sidoo kale gaajada waxa ay qofka baraysaa inuu qalbigiisu khushuuco oo waxyaabihii shahwaadka ahaa uu iskaga tago. soonku wuxuu ku taagan yahay 3 tiir oo aad u waaweyn. haddii mid ka mida la waayo, suurtagal ma ahan inuu soonku ansaxo. in laga haro ama laga fogaado wax walba oo soonka jebin. in la niyeysto soonka, maxaa yeelay niyo la'aanteed soonku ma ansaxayo. in la helo qofkii soomi lahaa, sababtoo ah bini'aadamka ayaa soonka lagu waajib yeelay. haddii la waayo bini'aadamka, soonku waajib ma noqonayo. ma leeyahay shuruudo uu soonku ku ansaxo? soonku waxa uu leeyahay shuruudo. haddii la waayo shuruudahan mid ka mid ah uusan ansaxaynin soonku. marka hore, qofku waa inuu yahay qof muslim ah, maxaa yeelay qof gaal ah soonku kama ansaxayo. waa inuu yahay qof qaangaar ah uuna awoodaa soomka. waa inuu yahay qof caaqil ah, maxaa yeelay qof waalan oo caqligiisu taam ahayn kama ansaxayo. waa inuusan ahayn qof musaafir ah, maxaa yeelay qofka musaafirka ah waxaa loo baneeyey inuu afuro mar kalena uu soo gudo. dhinaca dumarka marka la eego, dhinaca dumarka ama gabdhaha marka la eego, waa inay labada dhiig ee dhinaca dhalmada iyo kancadadaba ay daahir ay ka yihiin. waa maxay fadliga uu leeyahay soonka? soonku wuxuu u leeyahay fadli aad iyo aad u weyn, waxaana ka mid ah qofkii sooma bisha ramadaan isaga oo rumaysan inuu ajir xisaabsanayo, qofkaasi waa loo dhaafayaa dembigiisii hore. qofka sooman ducadiisa lama soo celiyo. soonka akhriso qur'aanka wuu kuu shafeeco qaadayaa. soonka wuxuu caafimaad u yahay jirka. soonka waxaa lagu dhaafaa dembiyada. soonka qofka wuxuu siiyaa awood. soonka waa gaashaan oo uu qofku ka gaashaanto naarta. soonka waa kafaaro gud, waayo waxaa lagu dhaafayaa dhaarihii aad daaratay. waa maxay astaamaha lagu garto bisha barakaysan ee ramadaan? waxaa la soo dejiyey qur'aanka kariimka. waxaa la furaa albaabada jannada iyo cirka. bisha ramadaan waxaa la furaa albaabada naxariista. bisha ramadaan waxaa la xiraa albaabada naarta. bisha ramadaan waxaa la xiraa shaydaanka oo idil. bisha ramadaan dad ayuu alla naarta ka xoreeya. bisha ramadaan waxaa ku jirta hal habeen oo ka khayr badan 1000 bil. dhammaanteen allaha naga dhigo kuwii ka faa'iidaysta soonka.